إن ماير عبد الكريم أحمد موجي برتمها دوحة هرجيسة إنه بربر تاجنا هاي وما أنت أولا نظافة ده تكفل السنة دي كي شعب كهرجيسة إسكاشنا يا لكن سؤال دوني أنا كويدية ددوينونا إسويدين يا واحد تاوين بدنا نسوق جالسة ماير عبد الكريم قورما يصور عفا يا دوحة هرجيسة ودوين كبار بربرصن أديجي كلا ترى قورم صور عفا يا دوحة حسن بسم الله الرحمن الرحيم إن كستون إن شاء الله سؤال شاينا هذا كجوابه دوحة وأنا صور دافين ونسكت حجوجون شقده ونحسن وكها إنه سيودنا وفعلنا ساعة دوحة وينوسي ونحشين ساعة لكن شقده ونحسن دوحة كوضع وأنا كقبرني دوحة وصور دافني لكن دت كنا وما في رسالان وحيالها بدن ونحسن إحرارها كصعدة هل وحبي إيجان يروح كوبن بانا كوعي على سكل مدى إسكم مدى maxay u arki waayeen saddex wado in magaalada Hargeysa isku mar ay bilaameen isku mar soconayaan isku marna dhamaanayaan maxay u arki waayeen in iskuuladii primary-ga lix kamid ah in la dayactirayo oo muuqaalkooda la bedelayo oo laga dhigayo meel ku haboon caruurteena inay wax ku dhigtaan maxay u arki waayeen in magaalada Hargeysa intaasoo wado oo xidhnaa oo qaarkood 30 sano Soomaaliland jirtay aan la furin in la furay maxay u arki waayeen shaqada wanaagsan ee ka dhex socota xafiiska dawladda hoose ee ah dib u habaynta shuruucda lagu shaqeynayo policies-ka iyo siyaasadaha lagu shaqeynayo waxa kaloo socota iyaduna dejinta miisaaniyadda oo ah ta wax lagu qabanayo oo imika aanu ka farxalanay miisaaniyadaanu aad u kordhinay runtiina koraan u qaadnay iyada mar gaaraan doonayna inaanu kaga hadalno ummadda u soo bandhigno marka shaqooyin badan oo wanaagsan oo qiimo leh ayaa dooxana ka socda dooxa dibadiisana ka socda labada oo wada socdaana guusha lagu gaaraya marka saddexda wado oo kale si dadku fahmaan xagee ku yaalaan ka socda wallahi wadada weyn ee ka bilaabata the Imperial Hotel ilaa iyo aan ugu talagalnay in saldhigga weyn tagto waliba aan doonay in noqoto wada ka maartay ka duwan wadooyinkii hore ee la sameyn jiray weeye waxa sidoo kale dib u habayn lagu sameeyaa wadada dhakhtarka dabadiisa marta drainage-ka dabadiisa mara baa dib u habayn سوين لو سمين دونا بلعدنا كور لو قادي دونا sidoo kale wadada maaragtay October oo aad u baabaaday ayaa iyadana dib u dhis marka lagu sameyn doona adeed wadooyin badan baan doonaynaa inaanu inta sanadka ka hadhay oo kaliya inaanu qabano iskuuladan doona wax ka qabano MCHan wax ka qabanayna wadooyinka xidhan oo dhan baa la furaya xafiisyo cusub oo degmooyin baa la sameynaya la dhisaya marka shaqada wanaagsan ee ka socota meelaha kale shaqada intan haday iyagu arkayaan waxa jirto shaqo fara badan oo ummadan u dana oo u weyn oo muhiim ah oo ka wadno mesela markii hore qofku markuu degmo doonayo adeeg in looga qabto uu dhimudan jiray hadee maanta degmooyinka tagde shaqada wanaagsan ee ka socota aragde sida lagu shaqeynaya aragde waxa sidee iskama iman waxaynu ka hadlaynaa waa 3 bilood 3 biloodna anigu ma doonayna sida dunida reer galbeedka inta dadka soo hor fadhiisana ku raado 100 cisho waxaan idin qabtay waa waxaan ma doonayo laakiin qorshe waxa weeye 6 bilood aan ku lahayn sanadkan tagay oo aan ku shaqeynay miisaaniyadii hore oo lagu kabay xoogaa maaragtay aragtiyihii xildhibaanadii golaha deegaanku ay ku soo ololeeyeen lagu kabay ayaanu qabanaynay laakiin waxaanu doonaynaa dadkayga 6 bilood markay dhamaadaan inaanu iyadoo dhammaystiran soo bandhigno maxaa la qabtay 6 bilood oo ay kala jiraan maalmaha 6 bilood iyo maxaa la qaban doonaa sanadka cusub ee soo socda miisaaniyadda lagu qabanaya maxay tahay waxa la qabanayaana maxay yihiin waxa kale oo doonaynaa dadku inay noo soo dhawaadaan oo ay maalin kasta iyo wiil kasta iyo bil kasta ay nala socdaan oo ay arkaan markaa shaqada wanaagsan ee socota dooxa hadii cid ku celceliso anigu waxba kama qabo haddaan 5 sanadood oo muddada nala doortay shaqadu u baahan yahay dooxan in laga qabto haddaan keligii ka qabto waxaan qabaa magaalada Hargeysa wax weyn u qabanay waayo dooxani وما دوحون ما وحويان مقالدني waxay noqotay magaalo isku rarana waxay noqotay magaalo meelihii la wada lahaa nin waliba maartay waxa ugu dareemantay waa dhul inaad hesho oo ka samaysan beer lagu nastaa way adag tahay marka dooxeena inuu nadiifsano oo inuu qurxisano oo qaar kubada ku ciyaaraan oo qaar ku lugayaan oo qaar ku nastaan oo gubkii lagu yaqaanay garanwaaga intii goynaa inuu ku bedelo wax kaga xumaanaya Hargeysa ma jirto sharaf iyo wax wanaagsan oo soo kordha mooyaan marka anigu waxay la tahay waxaanu nahay qaar waxaan jecelahay shacabkayga wanaagsan ee gubta way arkayaan shaqada wanaagsan ee qabanay markaanu degmooyinka ugu tagnana way noo mahadnaqaan waliba ma nihiin qaar iyagu shacabka ku yiraahdo waxa sameeya ee waxaanu nahay qaar ku hogaaminaya oo tusaya shaqada soo loo qabanayo dadkayga wadada waan la furnaa
qashinka waan la gurnaa wadada waan la dhisnaa iskuulka waan la dhisnaa shaqo wanaagsan oo anaga shacabku aan wax walba wada qabanayno ayaa halkan ka socotaa dee waa laga yaabaa intaan xasan 3 bilood xilka hayay inaan ku mashquulay shaqada aanu qabanayno hogaaminteeda inaan ku mashquulo laga yaabo oo kaga mashquulay inaan TV-ga hor imaadoon ka faano laakiin anu waxaan hubaa 3 bilood oo tagay haddii maalin iyo saacad loo xisaabiyo oo laga jaro waxaanu qabanay haddii dadkayaga gobtihii marka aynu u sheegnaa oranka farxad iyo sacab mooyaane inaanay wax dhaliila aanay noo helayn 6 bilood kadib aad u ballan qaadaysaa 6 bilood ka bacdi baanu si weyn u hor imanaynaa shaqaalahayaga horkeen anagu kaliya ma dadkii wanaagsanaa shaqaalaha shaqada wanaagsan baa hor imanaya 6 bilood tagay waxaanu qabanaa ummadeeda u sheegaynaa waxaanu kale u sheegaynaa sanadka soo socda waxaanu u qabanayno iyo degmo walba waxaanu ka qabanayno iyo area walba waxaan ka qabanayno dadna waxaan doonaa January laga bilaabo ilaa December sanadka dambe dadkayaga anagoo wada socona inaanu shaqada wanaagsan wada qabano waxaan doonayaa dib in la arko isbedelka muddo yaro kooban oo dhowba in uu hadlo isbedelku hadlo oo muuqaalka ka imanaya shaqada wanaagsan aanu qabanay ay dadka hor timaadeen hadalkayaguba aan loo baahanba oo maxaan ku murmay dooxo hore ka duwan wadooyin cusub oo la sameeyay iskuuladii la dayactiray MCHdu dawooyinkii helay oo la sii wanaajiyo la sii qurxiyo adeeg fiican lagu helayo shaqada wadooyinkii xidhnaa ee dadkan ku dhimatay oo maartay xooliyo dadka magaalada laga saaray dhirtii oo intaanu beernay baxday wanaaga iyo waan dadka u ballan qaadnay ficil ku arkayaan hadalku baa iska yaraado muxuu hadal taraya dooxana xasan oo Ilaahay baan ku dhaarshay imaka adiga laftigaagu waxba maxay dadka raagis adaa imaka dhex jooga bataaxi miya quruxdii shalay sidoo ka miyo uu ku qurux baday iska lugay adiga laftigaagu media ugu yaad waxaan wanaagsan dadku arkaan maxay uu wax la dhaliila iyo dooxa meel dooxa laftigiisa hadii laga wado 5 sanadood baad ka shaqeeyo shaqada la doonayo in laga qabtaa 5 sano way soconaysaa hadii cid dhibay sadeediyada u taala laakiin anigu 5 sanadood joogo dooxani wuxuu noqonayaa meel kamida shaqooyinka ugu waaweyn dawladda hoose qabanayso waanu qorshahayagana ku jiraa 5 sano ku dhex qorsheysay dooxa waxa laga qabanayo gabiyan baa lagu xoraya geed gobaa lagu beeraya qashinka laga ilaalinaya waa shaqo ku mudaysan 5 sanadood hadii qof dhibayso dooxa maxaa looga shaqeynaya isaga u taala kaas